السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فيديوgan waxaa ugu talagalay haddii aad raadinaysid side hustle amase maaragta aad oo shaqeynaysid aa waqti badan haysatid si oo maaragta lacag aad u samaysid marka 10 websites 10 ways ayaan idin qaybsan doonaa insha Allah and to make extra money monthly. So side hustle number 1 insha Allah waxaad sameyn kartaa grocery delivery marka waxaa sameynaysaa Walmart oo kale ama meelaha qaar oo laga maaragta dadka ka adeegtaan dadka badan hadda adeeg ma aadaan sababtoo ah waxa COVID-19 laga cabsanayaan all that stuff marka delivery aad sameynaysaa marka for example caadi maxaa la dhahay Instacart aad sameyn kartaa Postmate DoorDash ama waxaad sameyn kartaa Shipt baa la dhahayo just apps way abyalkaas mid ka mid ah soo download gareynaysaa caadi maxaa la dhahay few legal requirements uu leeyahay maaragta waxaa oggolaanaysa maaragta terms and oggolaanaysa conditions and then way ku oggolaanaysa marka you can start caadi maxaa la dhahay learn doing the work saacadaha adaa dooranayo nambaraha aradma oo orderka arad adaa qaadayo distancega adaa maaragta waxaasoo dhan waa u madax bannaan tahay cityga ka shaqeynaysa weekii adiga maaragta waxay ku xiran tahay saacadaha aad gelisid like waa ka sameyn kartaa 200 ilaa 800 weekii aad ka sameyn kartaa and it depends on maaragta supply demand ama sidoo kale search waxa ay leeyihiin waqtigaas camal la shaqeystaa especially Friday afternoons iyo Saturday Sundays. So that's number 1. Number 2 waxaad sameyn kartaa you can teach language waxaa bari kartaa maaragta luqado ama hadaa garanaysid luqad maaragta gooniya Ingiriis oo kale Kiswahiliga oo kale maaragta Carabiga oo kale luqada bari kartaa even community-ga caadi maxaa la dhahay community schoolka ama iskuulada maaragta dadka weyn waxay leeyihiin qayb lagu baro dadka maaragta waaweyn ay leeyihiin marka you can just waa bari kartaa online waa ka bari kartaa marka kuwa online maaragta Vebling milday VERBLING Vebling kaas waa ka bari kartaa iyo Brevly PRE like prep ly lagu dare mid kale waxaa jira iTalk la dhahayo the word talk oo ay hadan u dambayso iyo VIB Kid kuwaas ugu weyn hadda caadi maxaa la dhahay waxay ku xiran tahay ayagana sidaa oo kale inta aad shaqaysid certificate kan badanaa waxay u baahan yihiin certificate u baahan yihiin laakiin it's a great way of to look maxaa la dhahay extra income monthly ka sameyn kartid kan saddexaad waxaa noqon kartaa mystery shopper waxaa waa shop strategy technique used by companies to improve their customer services. So I guess maxaa la dhahay the way I'll below kartid waxaa waaye like afar website hadda ku siinaya Bestmark, Sinclair, Market Force iyo Intelli Shop INTELLI-shop afartaas hadda ay suuqa ugu weyn so this is like shop aad tegaysaa mystery shop camal shop aad tegaysaa oo ka warhaynin aan ku garanaynin and waa shop garaysanaysaa marka review ka bixinaysaa. So I think this was that's how it works. Marka the earnings na waxa waaye ayagana and it's not kan waxa ku xiran tahay saacad maaha it's task ka qabato taskigana waxa waaye $20 ilaa iyo $200 every task qabatid. So taas waa equality maarta review adiga aad bixisay ku xiran tahay. Side number 4 waxaa sameyn kartaa translation documents dayna waxay ka duwan yihiin because turjuwaanka iyo maaragta translation way kala duwan translation waxa waaye and like spoken words maxaa u bedelaysaa written words marka hadalada lagu hadlo waxaa bedelaysaa qoraal u bedelaysaa mid kale maaragta hada qoraal mar hore oo maaragta oo ahay luqada Ingiriiska waxa ka dhigi kartaa Soomaaliya ama Soomaaliga soo luqada Ingiriiska ka dhigi kartaa so translate marka saas waaye and the best places oo laga sameyn karo maxaa la dhahay ama company ugu weyn hadda hire gareynayaan how I translate and Bible UNBABEL 1 hour translation Jingo GENGO iyo Lingosaur LINGGOSAUR marka saydyalkaas adiga hadda maaragta shaqadaas ka qaban kartaa I used to do on a different platform oo la dhahayo Upwork and it does make good money like entirely waayo waa lagu daalaya but it does make good money so marka wax qabanayna ama xaafad aad joogtida lagu xadaa. Number 5 waxaa sameyn kartaa virtual call center noqon kartaa macnaha company u shaqeynaysa gurigaaga joogtaa
telephone ama computer waxa ay kusoo dirayaan dadka markii companygaas callka u dhaco waxaa jira software oo meesha oo maaragta bedelaya callka adig kusoo tuurayo so marka you can also do that marka waxaa waaye agent waaye marka call center noqonaysaa number 6 waxaa waaye proofreader waxaa waaye amise maaragta tusaale ahaan qofaa qoraal qoray qoraalkaasaa dulmaraysaa wixii qaladaad ee maaragta qoraalka ka dhacay aa qabanaysaa and then maxaa la dhahaye this is like a piece like fee for service camal waaye shaqada aa qabato you get paid whatever piece of paper aa edit garaysid ay kugu pay garanayaan waxay ku fiican tahay this is upfront lacagta maaragta by 100 words by whatever it is way ku sheegayaan shaqada intaa qaban ma ogolaan kartaa ma iska dhaafi kartaa number 7 waxaa waaye transcription aa sameyn kartaa transcription is codka maaragta oo like voice over oo kale ama codadka ee maaragta oo la dhageysanayo and then la bedelayo ayagana saas oo kale waaye ama se qoraal aa cod ka dhigaysaa so you transcribe marka so number 8 waxaa noqoni kartaa tutor online tutor so qofa u noqonaysa meeriye ama se kabiir saa u garanaysid marka tuura noqonaysaa marka dad badan aa jira especially covid-19 kan uu imaaday maxaa la dhahaye there's a lot of opportunities oo xaafad aad u joogto shaqa aa samayn kartid so marka haddii math aa garanaysid xisaab maaragta ama garanaysid science-ka ama biology but kuwa hadda ugu weyn is mathematics and english sababto a lot of rich people waxaa jiraan caruurtooda maaragta they want inay bartaan ingiriiska inay bartaan and they hire caadi maxaa la dhahaye tutor so marka caadi maxaa la dhahaye tutor CHEGG tutors kaas oo weyn because I've used the website ka now isticmaalabo and maxaa la dhahaye for example like homework ayaa haysata and then you just put the questions and mentor haystaan ama tutor haystaan and the tutor will answer questionka asaga kaga jawaabayo so you can become one of those people they tutor me is Wayzat WYZA ZANT Wayzat and then tutor kala tutor point TUTAPOINT wuu jira and then smart thinking marka caadi maxaa la dhahaye 6 waaye lixdaas meelaa ka heli karta caadi maxaa la dhahaye to be online tutor midka kale waxaa noqoni karta online research assistant marka waxaa waaye waxay qabanayaan waa professional waaye waxay conduct gareynayaan research waxay aruurinayaan masahan ama experiments ay sameynayaan waxay ururinayaan caadi maxaa la dhahaye datada ay dadka kasoo qaadeen ama meelaha ay kasoo qaadeen ay soo aruurinayaan maaragta waa analyze gareynayaan waa present gareynayaan marka that's how you do it waxaa sameynaysaa marka qof ku xilsaaran oo handler marka waxaa aruurinaysaa xaafadaha tagaysaa mise banaanaha dadku weydiinaysaa mise suuqyada tagaysaa whatever it is shaqa ay ku diraan marka maxaa la dhahaye waa analyze gareynaysaa report aad diraysaa that's how it works and researchkaada gudbinaysaa caadi maxaa la dhahaye just like sidii oo kale waxaa waaye like online surveys or things like that why that nature marka the best place amise caadi maxaa la dhahayaa ku fiirin kartid in oo u qalantid waxaa waaye ask wonder meel la dhahayo ASK WONDER ask wonder so that's how you're gonna do it number 10 waxaa noqoni karta website utility test waxaa waaye website yaalka maaragta badanaa website builderska dadka hadda oo dhiso websiteyada amise Apple app oo test gareyn app ay dhisayaan ama website ay dhisayaan and they want to test it marka waxay sameynayaan they offer waxay maaragta lacag ay sheegayaan amise ay offer gareynayaan website-ka test gareynaysa marka inuu shaqeynayo marka wixii oo waxaa ka bixinaysaa dhow dambe review ka bixinaysaa for example website-ka marka maxaa la dhahaye blogs iyo designs iyo functionalities u shaqeynaya waxaas dhan aa fiirinaysaa no iyo the data iyo haddii even structure-ka qaabka ama the features and all that stuff aa fiirinaysaa marka waxaa u baahanta keliya caadi window mise mac inaa haysato computer aa u baahan tahay ama high internet haddaa haysidna telefonkaaga tabageli karta some of the websites marka no 7 websites oo marka maxaa la dhahayo utility testing sameyso marka user testing mid waaye midka kalena waxaa waaye user lyrics and then waxaa kaloo jira user fill waxaa jira enroll app testing time try my UI user brain marka todobadaas
caadi maxaa la dhahaa aad samayso marka laakiin website-yada badanaa waxay bixiyaan $10 for 20 minutes to complete shaqo marka waxay kugu qaadanaysaa 20 minutes and you make $10 haddaad shaqaysa which means maxaa samaynaysaa $30 maxaa la dhahayaa haddaad shaqadaas si fiican u qabsatid 30 minutes $30 per hour waaye marka 20 minutes ay kugu qaadanaysaa to complete $10 aa helaysaa marka inta daqiiqa aa meesha fadhin kartid ama inta saaca ku qaban kartid marka maxaa la dhahayaa that was it I hope that helped lakin waxaa la dhahayaa it doesn't make any sense if you just watch the video or waxba tilaaba aa qaadin so the to be successful ama si oo maaragta you know like just to try one of the methods caadi maxaa la dhahayaa it should work for you and give it time. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.